كي محيسي قرباني هيو مشكلة يبو أبوتي مسنا مرن كتاكتود مع سلامة يبوتري كامنا متيسني أحدياد من البيان وحادا أنتم يابي مسنا مرن كتاكتود مع سلامة يبوتري كامنا متيسني أحدياد من البيان وحادا أنتم يابي بلان مين مرياني مرنكا مفلاني إناد ميا إلي داي ولو ما أنت تتري اسمنا با بلان مين مرياني مرنكا مفلاني إناد ميا إلي داي ولو ما أنت تتري اسمنا با haddaad mooday xaajadu inay meel wacan marka ay marayso heeskaasi ina markaa maryan la yiraahdo waxaa dabcan ay daharogu ahayd barnaamijka bandhiga caalamka khiyaartana dhegeysanaysa waxaana markaa ku luuqeynayay Bashiir Cali galab wanaagsan ayaan leenahay waxaan markaasi gudagalaynaa barnaamijkan oo marka aad kala socotaan idaacadda Royal ee Muqdisho dalka ayraade India ayaa markaa askar looga dilay dagaal ka dhacay xadka marka ay la leeyihiin Shiinaha dawladda Hindiya ayaa markaa sheegtay in 3 askari oo markaa ciidamadeeda ka tirsan ay ku geeriyoodeen israsaasin dhexmartay ciidamada ilaalada xuduudaha India iyo markaa Shiinaha war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Hindiya ayaa markaasi lagu sheegay in ciidamada Shiinaha ay rasaas huwiyeen sarkaal ka tirsan ciidamadooda xuduudda joogay iyo markaa ilaaladii markaasi la socotay waxaana markaasi warkan lagu sheegay in sidoo kale khasaare la gaarsiiyey ciidamada Shiinaha wararkan markaa ama weerarkan ayaa markaasi waxa uu ka dhacay magaalada la yiraahdo Ladakh oo ka tirsan gobolka Kashmir oo markaasi xuduud ay wadaagaan sidoo kale Pakistan dhanka kale afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee markaa dawladda Shiinaha oo markaa la yiraahdo Shu ayaa markaa uu sheegay wakaaladda wararka ee AFP in ciidamada India ay markaasi sharci daro ay ugu soo xadgudbeen xuduudda rasaasna markaa ay ku rideen dhanka ciidamadooda taasna ay markaa keentay in ay ka jawaabaan ama ay markaasi ay jawaabaan dawladda Shiinaha waxa ay markaasi ay ka gaabsatay in ay ka hadasho khasaaraha dhankooda kaasoo markaa ama ka soo gaaray iska horimaadkaas oo Hindiya markaa ay sheegtay in Shiinuhu ay khasaare ay gaarsiiyeen labada ee Hindiya iyo Shiinaha waayihii dambe waxa markaasi u dhaxeeyay muran la xiriira dhanka xuduudda ay markaasi wadaagaan labada dal waxaana markaasi oo Shiinaha uu yahay dadka markaa adduunka ugu tirada badan Hindiyana waxa ay ku xigtaa Shiinahaas oo iyana markaa ay tahay dadka labaad ee dunida ugu tirada badan watahay Ilhan Umar iyo markaa behed oo dhintay iyo oo ku dhintay Mareykanka taariikhdiisa ayaan markan soo qaadanayna allaha u naxariisto Nuur Umar Maxamed oo ah xildhibaan
ilhaan cumar aabaheed ayaa waxaa markaasi uu ahaa nin muddo dheer markaa soo shaqaynayay oo dadkii yaqaanay ay markaa ay ku tilmaameen in uu ahaa nin faraxsan ama nin markaasi bashaash ah oo dadku markaa ay jecel yihiin. warka geerida aabaheed ayay ilhaan cumar markaa ay kusoo bandhigtay barteeda bulshada ee markaa facebooka iyo twitterka ay markaa internetka ka isticmaasho, halka oo markaa fariin kooban oo afka markaa ingiriishka ama ingilishka ku qorneed ay ku xaqiijisay in dunida markaa uu ka tagay aabihii ilhaan ama aabaheeda. fariinta ilhaan ayaa waxaa markaa ay u qorneed sida tan: inna lillaah wa inna ilayhi raajicuun. dhab ahaantii ilaah ayaa markaa na abuuray, isagana markaa u laabanaynaa. waa murugo iyo xanuun weyn inaan markaa aabahay nuur cumar maxamed sagootiyey. ma jiraan markaa kelmado aan ku qeexi karo ayaa markaa ay leedahay. waxa uu ii ahaa iyo waxa uu markaasi u ahaa dhammaan dadkii yaqaanay ee markaa jeclaa isaga. fariimahaas waxaa markaa ka falceliyey kumanaan kun oo qof oo markaasi koontiyo markaas ku kala leh barahaasi facebooka iyo markaa twitterka ilhaan ay isticmaasho oo markaa geerida aabaheeda ay soo dhigtay. nuur cumar maxamed waxaa markaasi uu yaraantiisa wax uu kusoo bartay magaalada muqdisho ee soomaaliya, halkaa oo uu markaasi kaga baxay dugsigii alaahida ay markaasi masaaridu markaasi maamuli jireen. waxa uu markii dambe uu ku biiray ciidamada militariga Soomaaliya, halka oo markaa tababaro kala duwan loogu qaaday dalalka Masar iyo Ruushka. markii dambe nuur cumar alaha u naxariisto waxa uu markaa tababare uu markaasi u noqday ciidamadii militariga jamhuuriyadda Soomaaliya ay lahaan jirtay. cabdulle jimcaale jiisow oo markaa ah koroneel hore uga tirsanaan jiray ciidamadii militariga Soomaaliya muddana markaa ay saaxiibo ahaayeen marxuumka markaa geeriyooday, ayaa BBC da markaa ugu waramay taariikhda nuur cumar oo markaa kooban. cabdulle jimcaale waxaa markaasi waxa uu markaa uu nuur ku tilmaamay in uu ahaa nin ahlu taqwa ah ayuu yiri. nin ahlu diin ah ayuu markaasi uu leeyahay cabdulle jimcaale. nuur waxaa markaa uu ahaa nin dadka markaa ay jecel yihiin oo aad iyo aad bashaash u ah. waa ilhaan markaa cumar aabaheed oo geeriyooday. nuur waxa uu markaasi uu ahaa nin faraxsan. sidoo kale nuur waxa uu markaasi lahaa calaamado dadka ilaahay markaa jecel yahay ay leeyihiin. waa sida markaasi hadalka uu ku sheegay cabdulle jimcaale. nin sarkaal ah oo markaa ciidamada Soomaaliya ka tirsanaan jiray ayuu ahaa. sida markaasi siyaasadda oo kale, aqoontiisa oo kale, waxa uu ahaa nin markaa mutacalim ah oo wax bartay. cabdulle jimcaale waxa uu markaa sidoo kale uu sheegay in nuur cumar markaasi oo muddo 10 sannadood ah ay markaa isyaqaaneen uu ahaa nin markaa dadaal badan oo jecel inuu markaa wax uu barto ama aqoonta uu kororsado. markii Soomaaliya ay markaa dhibaatada ay ka dhacday markaa la qaxayna nuur cumar iyo caruurtiisa oo markaasi ay ku jirto xildhibaanadan ilhaan cumar. waxa markaa ay dib u degeen waddanka Mareykanka, halkaasoo oo uu markaa waxbarashadiisa uu kasii watay.
waata dhegeystayaal barnaamijka marka la socotaan waa bandhiga caalamka idaacaduna waa radio royal 92.3 megahertz farsamadu waa honesty anigu waa Barduro Kuuriyada Waqooyi ayaa markaa fiirinayna oo markaasi ku hanjabtay in ay ciidamo u dirayso xadka markaa kala qeybiya labada Kuuriyo ciidamada Kuuriyada Waqooyi ayaa markaa heegan la dhigay ama markaasi la geliyay in ay markaa ay u galaan xadka markaa kala qeybiya labada Kuuriyo hanjabaadan ayaa markaasi Pyongyang ay markaa ka bixin kaga goostay dhanka koonfur ay markaa ay sheegeen in markaa halkaasi ay ka soo markaasi halkaa ay ka soo dirayaan warar markaa dacaayad ah waa markaa sida Kuuriyada Waqooyi ay sheegtay Kim Jong Un oo ah markaa ama Kim Jong Un oo ah walaasha hogaamiye Kim Jong Un ayaa markaa sheegay in ay amartay in ciidamadu ay u diyaar garoobaan si ay talaabo ay markaa ay u qaadaan xisaabada ama xiisada markaasi labada dal ayaa sara u sii kacay toddobaadyadii markaasi ugu dambeeyay iyadoo oona markaasi labada Kuuriyo ay markaa ku kala go'een dagaal dhexmaray 1900 dhinaca kalena isla Kuuriyada Waqooyi ayaa waxaa markaasi qarxisay xafiis markaa kala dhaxeeyay koonfurta waa Kuuriyada Koonfureed oo markaa ku yaalay meel ku dhow magaalada xadka markaa ku taalo Kyosen waxaa markaa sidaasi sheegay saraakiisha Kuuriyada Koonfureed talaabada ayaa waxa ay markaa imaanaysaa saacado kadib markii Kuuriyada Waqooyigu uu markaasi soo cusboonaysiiyay hanjabaadiisa ah in uu markaa koonfurta ka qaadi doono talaabo military goobta oo markaa ka tirsan dhulka waqooyiga ayaa waxaa markaa la furay 2018 si ay markaasi caawiso in ay xiriir markaa isgaarsiineed yeeshaan xafiiskana labada dal markaa uu ka dhaxeeyo ayaanay cidna markaasi joogin tan iyo bishii Janaayo xayiraadii COVID-19